السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلام يا دمانتين سومالي محمدي ميرول بو أدوني دافه هذا كجوكتان وولاشين بارلين أو أتكوض السعوتان جانال كان بارلين أوفيشيال. فضلا جانال كهداد كو عصبتا هاي هنغا إلوبين إناد سبسكرايب نو سارتو أذيغا أيا إسكالي هادو مقال كان كو عجبيي لايك تنغو شرف ليريجلين أيا نوتا هاي maanta waxaan idin wadaa dhacdadan oo dhacday 2005 bishii saddexaad waxayna ka dhacday wadanka Sweden magaalada Gävle. Tommy iyo Anno iyo wiilkooda yar waxay deganaayeen dabaqa qaybta labaad. Dabaqa qaybta hoosena waxaa deganay Tommy waalidkiis iyo walaashiis ka yar. 2005 bishii saddexaad 29keedii subaxdii aroortii hore Tommy wuxuu maqlay Anna oo cod sare ku qaylinaysa. wuxuuna u maleeyay in Anna uu cunayo eeygoodii. Tommy wuu soo cararay wuxuuna yimid goobtii Anna ay ku sugneed. wuxuu ku arkay nin dheer oo xoog leh oo midi ku weeraraya Anna. Annana waxay ku cataabaysay waan ku baryayaa ha idilin idaa ayay lahayd. Tommyna aad buu u naxay wuxuuna u cararay qaybta hoose ee dabaqa wuxuuna wacay booliiska. markii booliiska iyo ambalansada ay imaadeen Tommy wuxuu taagnaay banaanka wuuna argagaxsanaay. Tommy booliiskii ayaa waraystay wuxuuna u sheegay inuu arkay nin dheer oo dhererkiisu yahay 1.80. kadibna ninkii uu ka baxay guriga. markuu guriga ka baxayayna waxaa arkayay asaga iyo walaashiis ka yar oo isla taagnaay banaanka. isla markii waxay bilaabeen booliiska inay ninkii raadiyaan baabuurtana joojiyaan dadkana waraystaan oo ay weydiiyaan nin tilmaamahaas leh. qaar booliiska ka mid ah ayaa koray dabaqa qaybta kore si ay ninkii uga raadiyaan. laakiin albaabkii ayaa xirnay. ugu dambeyntii booliiskii albaabka ayay jabiyeen. kadibna waxay meesha ku arkeen ay guriga ku jiro oo careysan aadna u qaylinaya. waxayna waceen Tommy. waxay dhaheen kaalay eyga banaanka u soo saar. Tommyna wuu diiday inuu eyga banaanka u soo bixiyo. waxaana eygii soo bixiyay Tommy walaashiis ka yar. booliiska markii ay guriga gudaha u soo galeen waxay arkeen Anna oo dhulka taala oo dhimatay. jirkeedana ay qayb maqan tahay. waxaa kaloo sii dheer inuu Anna dhiig ka socon inkastuu jirkeeda qaybo maqnaay. waa cajiib. meydkii markii la qaaday kadib booliiskii ayaa watay Tommy. intaas ayaynu ku soo koobaynaa dhacdadeennii maanta qaybtii koowaad. la soco qaybta labaad oo xiisaheedii xambaarsan. fadlan intaadan iga tegin hayga iloobin inaad subscribe ii saarto like-na iigu qabato. waana walaashiin baarliin oo dhammaantiin idin leh ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.